waxaan kula wadaagi doonaa hal farsamo oo aad qof aad hadda isbarateen jacayl ugu abuuri karto wiil ama gabarba. waa farsamo cajiib ah, hubaal 90% way shaqayn doontaa. waxaana la yiraahdaa dib uga jiidashada. waxa aad sameynayso ayaa ah marka aad qofka hadda isbarateen la sheekaysato kaliya 3 beri ama muddo usbuuc ah, qofkiina ugu yaraan uu xitaa ka helay wax yar adiga, ama xitaa u maleeyo inaad qof wanaagsan tahay, ama xitaa uu kula sheekaystaa wuuna ku soo jawaaba fariimahaaga. halkaas marka ay wax marayaan, hadda waxaad samaysaa dib uga jiido qofka, gadaal talaabo u qaad. hala hadlin qofka maalin dhan, kadibna dib ugu soo laabo sidii hore oo kalena ula hadal. waa intaas. soo waxaad isweydiinaysaa muxuu la jeedaa waxaas, ama faa'iidada ku jirta maxay tahay waxaas? aan ku sharxo. ugu horeyn, tani waxay ka dhigi doontaa qof aan la qiyaasi karin. hadda qofkii wuxuu ogaan doonaa inaadan ahayn qof 24 saac maalin kasta la heli kara. qofna ma jecla dadka la qiyaasi karo, waa madaxnimo taas. tan labaad, taasi waxay caddayn doontaa inaadan ahayn qof wax matare ah. waxaad haysataa waxyaabo kale oo aad qabsato noloshaada, waxaad haysataa dad kale oo aad la hadasho. taas ayaana ah sababta aadan u ahayn qof markasta la heli karo. waa sababta aadan fariin kasta durbadiba ugu jawaabi karin qofka. ugu yaraan qofka sidaas ayuu u malayn doonaa. tan saddexaad, waxay tusi doontaa qofka taas inaadan uga helin qofka sidoo kuu malaynaya inaad uga heshay. ma tihid qof sidii la rabo loo xukumi karo. taasina waa wax cajiib ah, qofkiina sidaas ayaad ku cajibisay. wuxuuna qofkii rabi doonaa inuu wax badan noloshaada ka sii ogaado. tan afraad, in badan inuu qofka ka fikiro ayay keeni doontaa farsamadan. wuxuu qofkii ka fikiri doonaa halka aad ka baxday, sababta aadan fariimihiisa ugu soo jawaabayn, ma qof kale ayaad heshay, iyo waxyaabo badan oo kale. maxaad samaysay? qofaan ku aqoon oo aad hadda isbarateen ayaad ku qasabtay inuu ka fikiro. inta badan ee uu qofka ka fikirona waa wax adiga ku fiican. marka aad waxyaabahan oo dhan isku soo qabatana, waxaa dhici doonta inuu qofka ku sii xiiseeyo in ka badan intuu markii hore ku xiiseynayay. waad samaysay, waa intaas oo keliya. hal maalin oo keliya ayaad fariimihiisa iska indhatirtay. hal mid kale xusuusnow, haddii uu qofka ku dhaho halkeed shalay dhan jirtay, hadhihin muuqaal ayaan daawaday oo ii sheegay inaan adiga jacayl kuga abuuri karo. no, just wax le u sheeg. u sheeg inaad mashquul ku ahayd, u sheeg inaad meel jirtay, wax uun u sheeg. sidoo kale maalmaha aad ka aamusaysana waad badin kartaa. haddii aad qofka maalin kasta isla hadashaan, hal maalin inaad ka aamusto waa okay. haddii aadan maalin kasta isla hadlin oo aad marmar uun isla hadashaan, waxaad badin kartaa maalmaha aad ka aamusayso. waxaad ka aamusi kartaa ilaa iyo 3 ama 4 beri oo kale. waa intaas. I hope inaad ka hesheen muuqaalka. haddii aad ka heshay like sii muuqaalka. channelkeena haddii aad ku cusub tahayna nagu soo biir, subscribe saaro channelkeena. insha Allah tin muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay nabadgelyo.